kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin baddaawadayaal sheeko xiise leh ayaan maanta idiin wadaa. Xaliimo Caynte waa hooyo 70 sano jir ah ka qalin jebisay asbuucan GED-ga dalkan Mareykanka oo ah waxbarashada lagu qiimeeyo dugsiyada sare isla markaasina waxbarashada kala gedisan qofka inta la siiyo uu jaamacad ku aadi karo. Hooyadan ayaa haddaba waxa ay ka timid Soomaaliya, waxa ay degan tahay gobolka Minnesota. haddaba sheekadeeda waxa xiisaha gaarka u yeelaya ayaa waxa ay tahay da'da ay jirto iyo dadaalka ay muujisay. waxa aan kula xiriiray khadka magaalada Minneapolis. ugu horreyntiina bal waxa aan weydiin doonaa sheekadeeda gaarka ee xiisaha leh. Xaliimo Caynte waxa ku qasbay xilligan in ay barato culumta dugsiga sare ayada oo rabto dabcan inay sii wado waxbarashadeeda. Xaliimo soo dhawow, aad baan ugu faraxsanahay hambalyaan ku leeyahay inaad iskuulkii dhammaysay. bal iiga waran waxay kaaga dhigan tahay inaad dhammayso iskuulkan GED-ga. waa mahadsan tahay wax badan ay iiga dhigan tahay because waxa waaye qofku inuu hadaf leeyahay waaye. anigu qof hadaf lahaan ahay, waxaan ka heri dadkii la eday oo dhintay oo fikirka fiican haystay. ilmo dhedhelaho waxaa yimid hadda iyo dadka maaragtay aan jaanis siinayo waxay macnaha dhibaatooyinka jira ma garatay. taasaa waxay igu dhalisay marka dadkayga qaxa iyo dhibka kusoo dhacay iyo waxaanan ka sheekay karin wax badana iga buuxay. adigu waxyaalaha muhiimkaa la weydiiye oo yaryarka aan qof wax ka buuxaanaan ahe. waayahay, maxaa kugu dhaliyey adiga oo 70 sano kor u dhaafay inaad waqtigan waxbarashadaasi aad ciirsato? inaan dadkayga caawiyo. meeshan waxaan arkay dad geeda hoostood ka soo qaxay oo 20 sano jooga oon luuqadii baran because waxa waaye qofku inuu hadaf leeyahay waaye. marka loo maaragta turjumo u baahan. marka waa argagax say ku dhacday macnaha inay dadkan aysan wax baranin. marka inaan tusiyo kuwaan hore waa tageen kuwa dambe inay ayagana sidoo kale ay saantayda raacaan. taasaa igu kaliftay inaan sameeyo. meeqa sano ayaad waday GED-ga inaad dhammaysood ka baxdo? wallaahi ma 6 sano mase waa 7 sano, laakiin waqtiga hadda ma xasuusto. waa laakiin recordka ku jiraa. waqtiga aan bilaabay later waa weydii karaa waqtiga aan bilaabay, laakiin meelahaasay ku aadan tahay. waayahay, marka ma rabtaa inaad sii wadid aqoontaadii iyo inaad waxbarashada sii siyaadisid, mase waxaad leedahay waxaa hadda igu filan inta aan barto hore uma socdo? su-aasha ugu fiican waaye oo maaragtay qolo kalena i weydiinayso waxa waaye maanta kadib maaragta waa dhinaca kitaabka inaan aadoon qur-aanka iska bartoon xishka iska tagoon inta go-aankaygu dhinacaas waaye. hadda uma soo jeedo inaan hadda waxbarashada aan sii wado, waqtigeeda ma joogo hadda. waayahay, marka waxyaabaha aad dadka u qaban doontid maxaa ka mid ah oo tiraahday GED-gan aan dhameeyay ayaan dadka ku caawin doonaa? maxaad ii sheegi kartaa hadda? waxa ugu muhiimsan inkastoon horey ugu jiray oon aniga waxaan deganahay meesha Soomaalida oo sida Riverside la dhaho ugu ballaaran ay degan yihiin. in aan dadka wacyi geliyo. waxaa kaloo laba ka dadkaan u turjuma aniga oo volunteer ah, lacag kama qaato. waa kaxaynaa meesha Xaliimo i caawin. haddadaas saacado ka hor gabara ila hadlayso oo dhahayso nabarir waxaan rabaa luuqad waa haysataa laakiin dhinaca shaqooyinaan geeyaa. xafiis oo halkan hoosteeda ku yaalo oo foomamka loogu bixiyaan geeyaa meesha aan ka shaqeeyo. ha noqoto meelo kale ha noqoto laynabal igu jiraan. waxaan dhahay ajir iska shaqayso. marka waxaa igu kalifay dadka colka ku soo dhacay inaan u adeego nimanka aan naxariisanayno 36 sano colaada ciila ahaaye. marka dhinacan markaad i weydiisad walax kalaa ii soo baxayo oo ku ciishoonayo. ma fahamtay? taas ina fahamtida. marka Soomaaliya kugu soo dhacaysa dabcan. waxaan qaada waayo 36 sano niman jaakad wadan kuleyl xiran oo hay xiran oo qabiil ku shaqeeyo oo 36 sano meydka hoos yaalo igu soo dhacayo. aniga waxa waaye wadanka qofka yeela aan wadanka mar hore iskaga tagi lahay. marka horeba ma war afkayga keen haddana afkiyaan wadaa weli. waa tahay
waxaan filayaa inaad weli waqti badan haysato ood wax badan dadka caawin doonto berigii aad yareed fursad ma u heshay inaad waxbarasho aad barato soomaaliyana dabcan xilli nabada oo deganaansho leh ayay waqtigaasi ahayd fursad ma u heshay inaad waxbarasho aaddo xilligaas waa su-aal fiican weliba waxaan kusoo aaday waqtiga oo luqadda ingilishka la dhigaayo dugsiga hoosaan kasoo baxay taasaa i caawisay sababtoo ee markii imtixaanka layga qaaday dhowr iyo 20-30 sano kadib waxaan ku guuleystay level 3 yaa lay fariisiyey taasaa maaragta garab isiisay oo anugu qof waxaan ahay luqadda hore u taqaanay laakiin waxaana taas Gulf Air aan kasoo shaqeeyey oo counter ticketing iyo waxaas aan samaynayo waa qof fogaan ahay oo aad u fog meeqa sanaad soo shaqaysay cimrigaaga wallahi Gulf Air aan waxaan usoo shaqeeyey intaasoo sanadihii ma xasuusto warkood dhowr iyo 10 sano miyaa ma aqamase 8 sano joogay kadibna ninaa iska guursado waxaan isiri maaragtay Gulf Air keliya ma ahan xataa kamben batrool oo xataa sawirkayga iyo kaarkii wixii dhan meeshaan ku jiraanaa jiro oon ka shaqaynayay bikoos anoo yaraa Itaaliya la ii diray inaan typewriterka soo barto marka typewriterka inaa baratid waxa waaye horta luqadda Talyaaniga inaa baratid aniga io parlo italiano io sono quasi italiano marka I'm multi language so taasaa maaragtay igu dhalisay inaan maaragtay waxaan sameeyo waa adiga waa badan luqadood ayaad ku hadashaa meeqa luqadood 2 perfect aan uga hadlaa midna jajab oon counterka Gulf Airta ku barto oo Abu Dhabi carabiga xoogaa suuqan ka bartay laakiin Talyaaniga iyo Ingilishku waa 3 luqadood iyo tayda waa tahay marka hooyo ku dayasho mudan ayaa tahay dad fara badan ayaa waxaad u tahay dabcan dhiirigeliye haweenka Soomaaliyeed maxaad kula talin lahayd oo ama adigoo kaleeta ah ama hooyooyinka ah inay sameeyaan actually waa su'aal aad u fiican hadda kuwa inta joogaaba igu daysadayba halima iskoolka igeena geey awalna waa gey jiree wiilasha jidka jooga soo qaxay aan waxaan idhahdaa haye ariyaa ma shaqaysaa adiga laakiin waxa aan u socdo ma oga asiga waa wiil Soomaaliyeed ama gabadh Soomaaliyeed waa shaqeeyaa haye saacadaha iskool maxaa u sii weysay waa yarta adiga ariyaa anoo cimrigaana iskool dhigtay kaale iskoolka aad yacni waxyaalo dad badanaa igu daysaday oo haddana waaba taagan yihiinba habriis arahan saarnaa waa soo dega rabaan waa tahay marka sidee baad bulshada uga dareentay falcelin in ay ma aragtay ku daysho inaad mudan tahay ah oo ay kugu dhiirigelinayaan markii aad dugsiga sare ka qalin jebisay waa su-aasha ugu muhiimsan waaye 500 oo flowers aa la ii keenay ay soo qaadeen dadku oon qaadi waayoon dadka kale isaga dhiibay macnaha yacni se ii dhiirigelinayaanay ayaguna ay leeyihiin wax fiicanaad qabatay waa dadaashay macnaha wax ku dayasho waaye waa laysku daydaa waxaana kuu sheegaa arrinta ugu muhiimsan oo haddaad iga ogoshahay maanta anigu mahii siyaasi ama activist qof activista aha aniga waxaan ahay naagta samaysa garoobada dalka Soomaaliya urur garoobada naagta samaysaan magacayga inaad saas u ogtahay ma ogi yacni dadkiiba gadaal looma fiirinayo nin kasta wuxuu fiirinaa dantiisa waaye this anigana ma aqaan wax igu dhaliyay sababtoo maybe anoo yaraa dibadda la geeyay that's why oo aniga saas aan u noqday aabahayna kaaba qabiilow ahaay degmada Galhareer haddaa maqashay haddii kale aabahayaa qoday asoo yar marka saantiisii aan baraacay soo yar wuxuu xoolo iyo waxbuu raacayay geedoo hargelmaada geedkii uu meyd ugu tegay Galhareer bartamaha Soomaaliya ceelbuuray ku dhowdahay waa qiso dhacday oo aabii afkiisa uu nooga sheegay marka hooyadiisa u yimid sawir hooyo nin dhintaan arkay dadka kale iyo aniga ku jira waa dhimanaynaa ceelaan qodaahay I wonder cunug intaas jira oo reemiye inuu ku fikiro inuu dad ceel u qodo
waa soo baxay xoo eriyay soo siisay ceelburu ku gaday waa soo baxay wuxuu u yimiday cusub lacade nin allah u naxariistay oo baarlamaanka ku jiray ayuu u yimid markaasuu wuxuu yiri anaga meeshaan ka imid dadkii biyo la'aanay u dhimanayaan meesha biyaha loo aadaana waa meel aad uga fog ceel dheer dhinacaas kale la aadaa maalmaha la soconaa kambani maraykanaha loo soo dhiibay waa guriga ugu horreeya aabbahay ilaa hadda waa ku yaalaa waa cid anaga fir taariikh aan leenaha haddaanaa raacaynta waana wax hibe ilaahay ma ahane aniga wax aan ka raadsanayo ma lahan asna wax ma ka raadsanayo dadka inuu badbaadiyo marka waxaan rabaa soomaalida inay isu soo jeestaan maxaad u leedihiin fir baan u leenaa dhahday maxaa fir u leedihiin inaan dadka u naxariisano oo dadka caawino aan fir u leenahay waa tahay marka waxaan ugu dari rabaa taas waxaan u baahannahay dalka Soomaaliya habar yar waxaa tihiin wariyaal dadka caawilaha ayaa tihiin 40 sano dadka dhibaato haysataa waxaan jeclaan lahaa inaad arrintaas ka hadashaan kuwa gudaha ma hadli karaan ma fahamta kuwiina dibadda jooga yaa 40 sano laga baxo oo jeebkayga gabadha waxay tiri waxay dadka waxaas u sameeyeen waa fududahay waxay u sameeyeen bas wiil ay wareysanayo meeshaan wareysanayo calooshayda jeebkayga naagtayda gurigayga cungayga marka cungiyow ka suwa caruurtay rag hadda waa nin raggii la safta ma soo daynin laakiin waa ku jirtaa waxaan dhihi karaa haddii la arko maxay ahayd gabadhayda waryaha haddaa rabto waa sii kartaa ma fahamta dhinac markii laga eego waxaa tahay hooyo dabcan dhinac markii laga eego Soomaaliya xaaladeeda way ku dhibaysaa dhinac markii laga eego dadka soo galootiga Mareykanka ah ama muslimka ah ama dadka laga tirada badan yahay ayaa tahay marka sidee bay ku arkeen dadkii ajaanibka dabcan waxaan ognahay iskuulada xilliyada qaarkood waxaa lala fariistaa ciyaal yaryar ama ilmo aad ayay u noqon kartaa ama aad dheli kartidbo sidee ku arkayeen inaad kalaasyo la fariisanayso oo homeworkyadii iyo waxyaabihii lagu diro shaqadii guriga aad ka soo shaqaynayso say kuula arkayeen macallimiintuna sidee kugu dhimrinayeen gabar yar oo aad u yar oo hadda iskuulka dhigata aan ka soo baxay markay aragto wasku kay duubtaa waxay tiri habar yar wax weynaa qabatay waana kugu daysa doonaa maxay ahayd in qaabka aad ku shaqaynaysid oo dadka Soomaali ugu taagan tahay waxaa xir cimrigayga intii ka hartay ilaa lay socodsiiyo waa ordahay waa wadaya laakiin waxaan jeclaa lahay dad dibadda jooga oo dhiig lahoo taasoo kale dadka u adeega waxa waaye aniga taleefonkayga 24 saac sida qof oo midaa wuxuu yiri horta kaala adiga xafiisaa kuu furan maya dhinac kasta waa ka caawinaa dhinac qof oo hadday noqoto isbitaal u baahdo hadday noqoto shaqo inay helaan maxay ahaday gabar airport ka shaqaysa hal saac ay saaka ila hadlaysa waxay tiri habar waxaan rabaa inaad caawiso ood iga caawiso qaabkii aan maxay ahaday shaqadaa layga soo ceeriyey aan shaqo ku heli lahay shaqadeydana mandayda aan balansannaha si caadiyaan kuugu dhiibi doonaa anagoo wareysi ku jirin gabadha yacni waxay ogaata anu ma aqaana iyada xataa magacayga xaliimaa la yidhaa iyada naftigeeda daday ka soo maqasha asay isoo aada markaasay isu kay sharaxday tiri dhibkaasaa heesto shaqadiyaa layga soo ceeriyay airboortka shaqaynay marka waxaan rabaa inaad caawiso waxaa la ii sheegay inaad dadka caawiso marka dad haddaanan luuqadda aqoon lahayn dadka ma caawi lahay no ma caawiye marka ina dadkay ugu gargaaraan aan u sameeyey waayahay dadkii kuu yimid waxaa ka mid ahaa Ilhaan Cumar oo kusoo barbar istaagtay markaad qalin jibinaysay sideed u aragtaa in Ilhaan Cumar iyo dadka mas'uuliyiinta ay aqoonsadeen dadaalkaaga oo ay ku yimaadeen oo ayna ku barbar istaageen waxay runtii waxay igu timid waxay og tahay waxa aan qabto maadaama ay qof mas'uula tahay wax badan ay la socotaa saas darteed ayay wallahi been ku sheegay oo wiila la shaqeeyaa mid soo wacay soo yiri xaliimoy isdiyaari shiray ka imaahaysay New York ay u safri rabtay fiiriya
wax ciyaara ma aha ayada iyo odageeda iyo kuwa security oo ilaalinayo waa isdiyaariyey waxaan u arkaa yani dhiirigelinay isiisay khayr allah siiye way dhiirigelisay sababtoo wax i dhiirigelsho maba arkin waa ku dhiirigelinaynaa waad mahadsan tahay waxaana kugu hambalyeenayaa inaad maaragtay waxbarashada sare bilowgeedii aad bilowday allahana kugu anfaco saad sheegtana dadka inaad ugu adeegi doonto ayaan rajaynayaa xalimo waad mahadsan tahay waxaan ku dari rabaa meel ay joogaan dalka iyo dibadda dadka hooyo da'dayda waxa bartaan ilmihii waa u koreen waxa bartaano ayagana way anfacayaan caruurta iyo dadka kalena waa anfacayaan because dad waxaa imaanayaan luuqada aqoona waddanka soo gelaya waa maxay uga dhigan tahay qofka markuu wax barto isagoo da'daada ah wax weynay uga dhigan tahay waxa waaye dadkiyaaba waa qofku waaba aniga tirsho camala ahay I work in different way saarta u socota waxaa ragoona micnaha waaya aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga thank you so much mahadsantaa way macaani maasha allah hada kuwa aan ciil u qabaan leebku ridi raba laakiin waa inoo mar kale iyo arrimaha siyaasadda haddii ilaah yiraaho insha allah yahay thank you xalimo caynta ayay taasi ahayd dhowaantan toddobaadkan unbay dhammaysay GED-ga waxbarashada dugsiga sare ee gobolka Minnesota waxa ayna noqotay qof tusaale u noqotay dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan Mareykanka isla markaasina aad u soo dhaweeyay heerka waxbarashada ay ka gaartay iyadoo 70 sano kor u dhaaftay guud ahaan waraysigan oo xalimo caynta aan ku wareystay ayaan intaas ku soo gabagabeynay